waxaan idiin sheegaynaa waxa weeye saaka waxaa golaha ka dhacay wax ugubo aan hore loo ogeyn oo qarjajac iyo xeerta jujuuba waxaad ogeydeen gudoomiyaha wuxuu isku shaanayn buu sameeyey isku shaanayntii waxay ahayd sharciga ma waafaqsanayn waxaa diidayay xeeroosaadka qodobka 18 faqradiisa 5 waxay leedahay isku shaanayn golaha mar qura gudiyada la isku shaanayn karo weyn gudi kasta wax laga tagaa taa wuu jabiyay oo gudida dhan isku shaaneeyay markii aanu nimina waxaanu aragnay qodobkaas oo xeeroosaadka waxaanu shir gudoon ku nahay oo Cabdiraxmaan gudoomiye ku yahay waxa weeye waa sharciyada golaha xeeroosaadka midda labaad waxa weeye isku shaanaynta waxa u xil saaray shir gudoonka maalmaha saxaafadda waxaan ka maqlayay shir gudoonku marka gudoomiyuhu maqan yahay ku-xigeenadiisu wax ma bedeli karaan sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka arrinkaas arrin wax ka jiraan maaha sababta waxa weeye waxaana la yidhaahaa shir gudoon iyo gudoomiyuhu noo yahay gudoomiyuhu wixii maamulka iyo lacagta iyo miisaaniyadda iyo waxa isagaa jeeganka lama saxeexo laakiin talooyinka kale waa noo kala qaybsan yihiin awoodaha qaarna waxaa leh gudoomiyaha qaarna shir gudoonkaa leh isku shaandhaynta gudiyada waxaa leh shir gudoonka oo isku dhan shir gudoonka waxaa la isku yidhaahaa gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen marka labaad waxa weeye haddii gudoomiyuhu iska daa banaanka u baxee burco gaadho ama golaha uusan fadhiyin awoodiisa oo dhan waxay ku wareegaysaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad haddii gudoomiye ku-xigeenka maqan yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa awoodda golaha ama ha isku shaandheeyo ama jeega isagaa saxeexaya wax alla wixii go-aan uu sameeyaana waa waxa weeye waxaa le hadba shir gudoonka qofkii ka jooga maaha sida madaxweynaha iyo madaxweynaha xilkooda ugu kala qayaxan yahay marka gudoomiye wuxuu ka yahay wuxuu leeyahay waajibaadkooniya kuma haysano waajibaadkiisii waxaanu ku haysanaa waxa weeye waa wixii naga dhexeeyey saaka ajandaha waxaa wada sameeya shir gudoonka isagana waad aragtaan oo te kuma qorin gudoomiyaha baa sameeyey wuxuu ku qoray shir gudoonka iskuma aanaan ogeyn khilaafkii hore taagan oo wada hadal noo socdo ayuu wuxuu samaystay ajandaha wuxuuna ku qoray sida aad aragtaan shir gudoonka golaha wakiilada waayo wuu ogyahay inuusan awood u lahayn isagu inuu keligii sameeyo ajanda sameeyo sidaa daraaddeed ajandaha waa kayr sharci uu golaha geeyey wuxuuna been abuurtay shir gudoonka magaciisii ayuu been abuurtay mid waa taa midda labaad waxa weeye golaha marka la geeyo ajandaha marka ajandaha la geeyo sharci waxaa jira waa in xeersaadku qorayaa 24 saacadood way la soo akhristaa tiimuu yeelina wuxuu sameeyey golihii buu keenay rag buu soo urursaday waa majara habaabiyey wuxuu weliba ku soo daray ansixinta gudida joogtada ee la isku haystay kuma jirto ajandaha isagaa jeebkiisa ka soo samaystay wuxuu kala sameeyey bisha 14keedii in yaroo la taliya uu ku qoray ayaa yiri 14kii bisha ayaa hoos waraaq looga dhiibay aanan ogeyn uu leeyahay sharcigu aynkaas u qoraya waxa idin sheegayaa sharciga haddii la isku qabto waxaa fasira maxkamadda sare maxkamadda sare dacwad baa loo gudbinay oo fasiraysa xeerkan inuu jabay yahay kale isku shaanayntii uu sameeyey inay baalmarsan tahay xeerka noo yaal haddii la yahay xeeroosaadka lagu socon maayo waxa weeye Cabdiraxmaan ninna shir gudoon waxaan ku nahay waa xeerka haddii la yahay xeerkii lagu socon maayo
waxaa dhici doonta dee nin walba inuu kursiga xildhibaanadii soo kacay ille kama xoog weynine sharcigaanu ku nahay oo u fadhiisto waxaanu ku wada shaqayn jiray 8 sano aanu saaxiib ahayn wada shaqaynanay waxaanu ku wada shaqayn jiray kala wadaag maxaa soo kordhay waxaa soo kordhay cabdiraxmaan laba xil buu isku hayaa oo aan isqaban karayn wuxuu isku qaatay gudoomiyihii baarlamaan iyo gudoomiyaha xisbi mucaarada oo u tartamaya madaxweyne waxaanu golaha ka samaynayaa cabdiraxmaan golaha waa ka sii socdaay wuxuu doonayaa inuu magac kaga samaysto beelo iyo dad qaaran u soo ururiya qof madaxtooyada iyo cid tiri cabdiraxmaan hala rido maxaaba laga ridaa waqtigiiba waa dhammaad gudoomiye nin doonaya iyo waxaanay wadaan gudoomiye wax aan ku falaya caawa anigu shakhsi ahaan ma jiro waayo koleyba waa dhammaad marka hadduu mafcal lahaa iyo hadduu dheef lahaana cabdiraxmaan baa qaatay waxaa loola jeedaa waxa weeye in dad lagu kasbado mucaarad golaha laga sameeyo waad ogtihiin midda labaad ee kasii daran sharci jabinta waxa weeye dalka waxa lagu joogaa beelaa lagu joogaa 8 gudoomiye golaha waxaa wada qaatay beesha dhexe marka afkayga ka dhowro beesha dhexaa wada qaatay labadii darafyada oo kuwa qaatay ka badan na waxaa la yidhi malihid qof walba wuxuu u sallaxay meel buu sallaxay sharcigeenu wuxuu ahaan jiray 8 gudoomiye in loo qayliyo beelaha golaha jooga taasina waxa weeye waa mid cabdiraxmaan wuxuu doonayaa madaxweynuhu dalka ka rabaa haddii golihii uu kala exanayo leeyahay labada daraf ma jiraan marna yidhaahaan waxa saaba qaybsigii waa xun yahay saaba qaybsigii waxaaba jabiyey golihii wakiilada ee sharci dejinta ah marka waxa weeye waxaa saaka golaha ka dhacay ma aqoonsanin umana hoggaansami doono midda labaad ka dhacay waxa weeye waa inqilaab waa xuquuq wixii mas-uuliyada iyo dhibaatay ka timaatana mas-uuliyadda waxaa qaadaya gudoomiyaha isku haysta labada xil in badan baanu ka hadlanay laba xiloo isqaadi kara maaha gudoomiyaha baarlamaanku waa inuu dhexdhexaad u dhaqaa xildhibaanada golaha waa inuusan kaga faa'iidaysan dana shaksiya markaa gole maaha golihii xeeldejinta maahe waa gole wadani haddii aan idin yaro faafiyo waxa weeye subxii haddaad golaha timaadaan garabka haweenka wadani xafiiska ku shiraya waxaa kaloo ku shiraya wax alla waxa xusbigaa waxa lagu maamulaa golaha sidaa daraaddeed golaha waxaan u aqoonsanahay maaha golihii xeeldejinta aad taqiineen waxa weeye waa gole uu leeyahay xisbiga wadani بسم الله الرحمن الرحيم وحير هوسات كي كله وحير هوسات كي كله ويا هوسات كان والله صعتانو هنت وقضب كسيدية تبناد أيا قلدان haddii sharci uu qaldan yahayna dee golaha xeerdejintu waa xaaraan weeyaan sharci qaldan oo iyagoo ay dhigteen oo kii golaha lagu maamulayay in la baalmaro in badan baan anuu kala talinoo tiraba 4 shir ayaanu wada yeelan mar walba isagaa meeshii la joogo ka baxayo meel kaloo cusub u boodiyo maaragtay baalmaraya wixii hadalladii noo socday nasiib darro tan maanta dhacday waa tii ugu fool xumayd ee maaragtay golaha ka dhacda waayo golaha haddii la samaynayo ajande waa in shirgudoonka oo isu dhame waa inuu wada sameeyo weeyaan manay dhicin midda kale waxa weeyaan in laga doodo oo cid waliba fikraday ka qabto ay halkaa ka soo jeediso kolka la qaybiyo oo nin yidhaa waxa lagu daro iyo waxa laga reebo
intaba way timaadaa taasina may dhicin waxa kale oo aan dhicin kolka xeer kasta oo nooc kasta ha noqdo kolka golaha la keeno xeerkaasi waa in waqti la siiyo ay xildhibaanadu ka soo fiirsadaan oo soo akhristaan oo ka bacdi laga doodo hadiya jeerna waxay ahaan jirtay waa dee la socotaane maalinta la qaybiyo ajandaha isla maalinta looma codayn jirin laakiin waa shirqool uu ku tala galay oo uu soo abaabulay ayay tani ahayd maadaama ay de sidaa tahay oo ay xeerkiina baalmarsan tahay annagu ma ictiraafsanin waana qalad weeyaan arrintaasi waxaananu ka qabnaa sharcigu wuxuu ka qabo waayo sharciga ayaa tilmaamaya haddii hay-adaha dawladdu ay wax isku qabtaan fasiraada maxkamadda sare ayaa leh maxkamadda waayo maxkamadda sarena waanu u gudbin dacwad wayna caddahay oo xeerkay ku caddahay xeer hoosaadka idinkuna waad akhrisan kartaan oo waad ka arki kartaan arrimahan kale ka dambeeyeyna iyaduna waa qalad labaad oo beesha dhacay weeyaan kolkaa ma aha baarlamaankii in looga faa'iidaysto xisbi ololihiisa waa nasiib darra annagoo shirgudoonkii ah oo halkan joogno shaqo u leh isaga ayaa had iyo jeer hoostu ka soo xidhanaya waxa la joogaa waa shir xisbi oo wadani ayaa meeshii ka socda waxaa habboonayd hadduu isagu shirkaa xisbi uu doonayo saacadaha shaqada maahe waxa ka baxsan inuu dee xafiiska xisbiga kula shiro laakiin nasiib darro saacadihii shaqada ayuu xisbigii ugu shaqaynayaa kolku doonana ma yimaado oo xisbigaasi ayuu maaragtay ku hawlan yahay arrintaasina mid isqaban karta oo laba xil oo adag in la isku qabto weeyaan waddanada qaarkood waxaa jira ninka speaker of the house guddoomiyaha golaha xisbi kama tirsana qaarkood doorashaba kuma soo baxaana waa la magacaaba sababta loo sameynaya maxay tahay hadduu xisbi ka soo baxo ninkani dhexdhexaad dee noqon maayo saddexdii xisbi dhexdhexaad uma noqonayo kolkaa imika way caddaatay inuu arrintiisu u janjeedho dhinac xisbi sidaa awgeed waxa halkaa ka soo baxay wax sharciyana maaha